waalid weli waxaan ku jirnaa qodobadii si caruurta ay isugu kaya furfuraan oo ay noogu sheegaan wax qalbigooda ku jira. Stepskan qaadayna qodobo badan baan ka soo hadalnay. Waxaan ku soo gabagabeynaynaa saddexda qodob ee u dambeysay. Qodobka ku xiga wuxuu noqonayaa validate their opinion, don't dismiss. Ilmaha fikradooda, dareenkooda qiimo u yeel, ha kula weynaado. Markiiba ha dismiss gareyn. Tusaale waxaa noqon kara wuxuu ku yiri ilmaha I am bored. Boring baa haya. Wuxuu ku yiri waan caajisanahay. Ilmaha wuxuu ku yiri maanta stress baa haya. Ilmaha wuxuu ku yiri video game-kayga ama wuxuu markaas sameynay ma shaqeynayo. Haddaad isku dayda marka inaad tiraahdo wax boring la yiraahdo ma jiro, aniga markaan adiga kula ekaasan sameyn jiray, ama aad tiraahdo nin baa tahay nin weyn iska dhig, ama aad tiraahdo khayrka waxay cunaan ma haystaan ma fahmi karaan, sidaa darteed kuma imanayaan. Laakiin markaad tiraahdo boringka hayaad kala hadasho, markay ku yiraahdeen I am sick waan xanuunsanahay aad tiraahdo dhib ma leh, waxay dareemayaan in opinionkooda ama dareenkooda feelingkooda uusan wax qiimo leh adiga kuu sameynin. Laakiin waalidku markuu yiraahdo ma xanuunsan tahay ha madaxa ka taabto dawo ma ku siiyaa yaranaso, waxay odhanayaan my feelings matter, my opinion matter in front of my parents. Dareenkaygu waa mid ay tixgelinayaan waalidkayga, fikirkayga waa mid ay tixgelinayaan waalidkayga. Haddaad saas sameyn weydo caruurtu iyaguna way kaa xidhayaan. Si aan isaga keen xidhin, fadlan validate their feeling, dareenkooda qiimo u yeel, ha yaraysan. Qodobkan ku xijinayn waxa weeyaan model yourself. Caruurta adigu u noqo tusaale wanaagsan. Waxaan ka wadaa ilmuhu waxa aad leedahay waxa uga weyn waxa aad sameynayso. haddaad maanta oo dhan leedahay quraanka akhri adiguna aad daawanayso Chelsea iyo Liverpool iyo kubad saw ma soconayso. haddii hooyadu leedahay quraanka akhri iyaduna maanta oo dhan telefoon iyo sheeko kale ay ku jirto saw ma socoto. haddii laakiin ay arkaan aabihii oo rixilkan tukira quraanka dul saartay akhrinayo, yiraahdo aabba quraanka goorma kugu dambeysay goorma akhrisay, wax weyn bay la noqon, waayo aabe iyo hooya dhaqanka ku jira. hadday arkaan adiga oo salaada xilligeedii tukanaya oo yiri aabba duhur waa la gaaray, wax weyn bay iyaga u noqon. waxaan u wadaa adigu qudwa noqo. haddaad noqon weydo waxaanaad u sheegto waxba ma keenayo. waalidiin fara badan waxaan arkaa runtii quraankiina ma akhrinayaan, bal ay caruurtu waa ogyihiin inaanay wax badan ka aqoon, laakiin ilmahay rabaan inuu xafido, inuu dhammeeyo. taas way adag tahay inay socoto. haddaad rabto marka ilmuhu inay kugu daydaan, fadlan adiga marka hore tusaale fiican noqo. qodobka kale een kusoo gabagabeynayna waxa weeyaan respect their world. adduunkan ay ku nool yihiin adiga yuuna kula yaraan. agtooda wax weyn buu ka yahay, agtaadana waa inuu wax weyn ka noqdo. tusaale basiida, iyagu waxa ay jecel yihiin iyo waxa ay rabaan inay kuu sheegaan, waxaasoo dhan waa inaad qiimo u yeeli karto. haddii laakiin ay arkaan inaad quursanayso ood iska xidhayso oo attentionkaaga markay rabaan aadan dhegaysanaynin, waxay dareemayaan adduunkanay ku dhex jiraan aabbayo hooyo agtooda qiimo kama leh. sidaa darteed qof qiimo u yeelayaan raadsanaya oo markay social mediaha aadayaan maxay ka helayaan? qof love saaraya, qof like saaraya, qof share garaynaya, qof repost garaynaya. adiga waa lagaa guuri. marka adduunkanay ku nool yihiin agtaada ha ka weynaado. waan adigu soo degto, indhaha ka eegto, levelkooda aad timaado ood markaa kala sheekaysan karto. waxaan kusoo gabagabeynaynaa waxa la yiraahdo the long term pay off, oo ah in waxyaabo fara badan oo agtanada runtii aan dhibsanayno aan indhaha ka laabano si communicationku uusan u go-in annagoo wax weyn ka fikirayna. tusaale waxaa noqon kara timahan faraha badan ay la baxaan. timaha faraha badan ay la baxaan hadday jecel yihiin laakiin aad ogtahay inaad isku dhacaysaan, waxaa habboon in timahaas oo shay culture oo iyaga fashion agtooda ka ah aad indhaha ka laabato adoo ka ilaalinaya wax ka weyn. qomuluudnimaa banaanka taal, ilxaad iyo atheism baa yaala, gang iyo violence iyo xabado laisku dilayaa yaala. haddii marka aanan mustaqbalka fog ka fikirin oo waxan yar aan isku dagaalno guriga uga cararaana, dhibkeeday leedahay. waana mid qur-aanka aan ka baranayno oo nebi yacquub calayhi salaam markay teenagers u yimaadeen iyaga oo markaa u sheegay yuusuf in bahal cunay, guriga kama erin. waalidkeesaa samayn kara. ka waran teenagerskaaga lagu imtixaamay kuwaad dhashay oo wiilkii yaraa naftiisa halaagay, waa khatar weeye. marka qodobkaasaan kusoo gabagabaynaynaa. fadlan qodobadan dhammaan waa qodobo waalid legisayd ugu tala gashay in aad daraasaysaan ood qaadataan si awlaada iyo inagu aanan u kala go-in
wax walbo qalbigooda ku jiran ay noo sheegaan. waxaan markaa ka hortegi karnaa insha allahu haddii ma aragtay ay rabaan inay wax dhibaato ah dhex galaan, waxaan ka hortegi karnaa insha allahu hadday rabaan dhaqamo kale inay qaataan. fadlan subscribe dhaha channelka Waalid Legacy. ilaahay subxaana wa tacaala awlaadeena ha xifdiyo. sheer garayna. wasalaamu calaykum waraxmatullah.